qodobka koowaad waxa weeye muhiimadda shirkan waxa weeye in dumarku ay ku baraarugaan dhibaatada tacadigan jirta iyo sidoo kale meelaha uu ka jiro muhiimadda ku xigta waxa uu noolahaa in gabar walba ay ka qayb qaadato arrintaas sida loo yeelay isla markaasna ay focusiga iyo sida arrintan loogu qareemaya ay ka qayb gasho in anaka dhexdeena maanta aan wacyigelintiina la siiyay iyo mataqaana fikradihiina la siiyay aan fahanay in dhibaato ay jirto oo markaasi meelo kala baxsan oo Soomaaliya uu ka jiro mawduucan waa muhiim waxaana uu muhiim u yahay in laga hadlo sababtoo ah waxa la ogaanayaa heerka uu marayo waxyaabaha tacadiyada ee gabdhaha ay la kulmaan sidoo kale waxa halkaas ka soo baxaysa in la helo dhibaatooyinka iyo tacadiyada ay qabaan gabdhaha wariyaasha ah ee Soomaaliyeed taas oo markaas sahlaysa in laga hortago in gabdhaha wariyaasha Soomaaliyeed aysan la kulmin tacadiyada iyo waxyaabaha la midka waxaana soo jeedin lahaa in la joogteeyo